Soomaali badan baa degan xeebtan. Soomaalidu waxaa lagu qiyaasayaa codadkooda markuu hoos u dhaco inuu 50 kun kor u dhaafay. maadaama uu 50 kun kor u dhaafay haddana cudud maaragtay lagu xisaabtamayo oo xuquuq siyaasadeed ahaan xooggooda ku goosanayaan maaha. baarlamaanka ma soo galaan inta maxay ahayd aqalka hoose oo MCL-ka maalkoo kali baa ka soo galay MCL-ka halkoona hata ma jira berigi horaaba halkoo u jiray halkoo nominated ma jiro waxa ugu wacan dhaqanka anaga xumaa oo Soomaalida aan lahayn baan meel kasta la tageena waa la qaybsamayaa qoys baa la isku kala cigtigaa magaalo la sameeynaa ninba nin buu raacaya marka cududii baa meel cidla nin kastana khasaaro ayuu maartay marka dambe u dhex fariisanaya marka waxaan u baaqayaa Soomaalida meeshan degan anagana waxaan ku holgaleynaa saan u midayn lahayn runtii meeshii danta ku jirtana loo mari lahaa cudud siyaasadeed oo maartay ay mar allaar markay dhibaato ku qabsatay iyaga ay markiiba ku ordi karaan oo maartay u doodi kartana waa in inta laga hagaajiyo baarlamaankana loo soo galo maxay ahayd MCS-kana loo soo galo oo baarlamaanka gobolka Mombasa loo soo galo marka waxa weeyaan waxaan iyaga u dirayaa fariin adag u dirayaa sida hore waa inay wax iska bedelaan waa in la midooba waa in cududda hal meel la mariyo waa in la muujiyo cududda iyada waxaad hanti baad ku leedihiin Soomaaliya hadaa tiin inta magaaladii baad degantihiin gobolkii baad degantihiin dhalinyaro badan baa jaamacada inaga soo baxaan oo u baahan shaqo iyo meel kasta inay galaan hantidiinna in la idin ilaaliyo aad u baahantihiin oo maartay bacshirada aad ku jirteen marka cilad inaga hor imaatana meel siyaasad aad ku ordaysaan oo idinku maartay taakuleyn ay jirto marka haddii aanan la midoobin oo ninba meel u ordo waxa weeyaan khasaaro baa la dhex joogaya markasta marka baaqa adag baan u dirayaa hal la midoobo annagana waan dhex imaanaynaa waan maartay isku keenaynaa waxaan ka shaqaynaynaa sidii loo midoobi lahaa cududda Soomaaliyeed oo xeebta Kenya ay u soo bixi lahayd insha Allah biidnillaahi albaari ay noqon lahayd wax midaysan oo halko maartay meel oo meel yar laga maamulo oo faa'iidada maartay ummadda iyo qowmiyadda meesha iyada laga howlgeliyay lagana hirgeliyay